ciidanka Iran ayaa waxa ay sheegeen inay si adag ama si ka adag sidii hore uga jawaabi doonaan weerar kasta oo cusub oo dalkooda lagu soo qaado iyagoo sheegay inay heegan buuxa ugu jiraan difaaca madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. bayaan ay baahisay wakaalada wararka ee Tasniim oo lagu xusay sanad guuradii ka soo wareegtay howlgalkii Mossad ee dhamaadkii dagaalkii Ciraaq iyo Iran ayaa lagu sheegay in ciidamada Iran ay maanta ka feejigan yihiin sidoo hore isla markaana ay diyaar u yihiin inay wajahaan halis kasta oo sidoo kale shirqool kasta oo ay soo maleeyaan cadowga. ciidanka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan difaaca madaxbannaanida iyo dhulka Iran ayna jawaab kasii adag sidii hore ka bixin doonaan warar kasta oo ay soo qaadaan dalalka ay u arkaan inay yihiin cadowgooda. isla wararka Iran afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Ismaaciil Baqa ayaa waxa uu sheegay in wadahadallada siyaasadeed iyo farsamo ee Iran iyo Cumaan ay yihiin kuwo weli soconaya isagoo sheegay in wadahadalladaasi uusan Maraykanku ka qayb ahayn isla markaana diiradda lagu saarayo maamulka iyo amniga maraakiibta isticmaasha marin biyoodka muhiimka ah ee Hormuz. Baqa ayaa waxa uu sheegay in wadahadalladu ay si gaar ah diiradda u saarayaan maamulka iyo amniga maraakiibta isticmaasha marinka Hormuz isagoo xusay in fariimo weli la isku dhaafsanayo dhexdhexaadiyaasha balse aysan jirin wax wada hadal toos ah oo ka dhexeeya Iran iyo Maraykanka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Tehran aysan codsan dib u bilaabista wadahadallada Maraykanka ee la xiriira xiisadda labada dal ka dhaxaysa. ma jiro wax codsiya waan u gudbinay Maraykanka si dib loogu bilaabo wadaxaajoodada ayuu Baqa u sheegay warbaahinta isagoo ku eedeeyay Washington inay isku dayayso inay ka leexiso indhaha caalamka waxa uu ku tilmaamay dambiyadeeda dagaal ee ku taageerayaan Israel sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Iran. Cumaan ayaa soo jeedisay qorshe lagu dhisayo isbahaysi heer gobol ah oo maamula marinka isla markaana suga amniga maraakiibta iyadoo maraakiibtu ay si xor ah uga gudbi karaan iyagoo aan bixin wax lacagaha marinkaasi. ha yeeshee Tehran ayaa ka soo horjeesatay soo jeedintaasi iyadoo ku adkeysanaysa in maamulka marinka Hormuz uu ahaado mid Iran ay hormuud ka tahay isla markaana maraakiibta isticmaasha marinka laga qaadayo lacago khidmado adeeg ah. inkasta oo labada dhinacba ay sheegeen in wadahadalladu ay horumar sameeyeen haddana ma jiraan calaamado muujinaya in Iran ay wax ka bedeshay mowqifkeeda ku aadan maamulka sare ee marinka. xiisadda u dhaxaysa Iran iyo Maraykanka ayaa sare u kacday toddobaadyadii lasoo dhaafay kadib weeraro ay Washington ku qaaday Iran iyo jawaab Tehran ay sheegtay inay ku bartilmaameysatay saldhigyo iyo qalab militari oo Maraykanku ku leeyahay ama u yaala bariga dhexe. war kale oo colaadan la xiriirana ciidamada Jordan ayaa waxay sheegeen inay maanta soo rideen 2 diyaaradood oo kuwa droniska ah kuwaas oo soo galay hawadooda iyagoo xaqiijiyay inaanay jirin wax dhimasho ama burbur hantiyadeed ah oo ka dhashay weerarkaasi inkastoo aan la shaacin meesha laga leeyahay diyaaradahaasi. dhanka kalena Ukraine ayaa si adag waxay uga jawaabtay hanjabaad uga timid Iran kadib markii Ukraine ay weerartay markab Iran ay leedahay. wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Andriy Sybiha ayaa sheegay in hanjabaadaha Iran aysan lahayn wax sal ah isagoo ku eedeeyay Tehran inay si toos ah uga qayb qaadanayso dagaalka Ruushka ah ee Ukraine. Sybiha ayaa sheegay in hubka Iran ay siisay Ruushka uu sababay dhimashada kumanaan qof oo reer Ukraine ah tan iyo sanadkii 2022 sida uu hadalka u dhigay. waxaana uu ku dooday in hadallada Iran ay yihiin isku dayo loogu leexinayo dareenka caalamka ee weerarada Ruushka uu ku hayo maraakiibta rayidka ee maraysa badda madow. waa hagaag daawadayaal waxaan haatan soo gaarnay xubinta falanqaynta ugu dambeysa barnaamijka oo ku soo qaadana alaaba warbixinada ugu dambeeyay iyo xogaha ay bixiyaan khubarada arrimaha dagaalka ciidamada sirdoonka diblomaasiyadda iyo weliba kuwa ku xeel dheer arrimaha siyaasadda. waxaan sidoo kale ka maran xubintan ku soo qaadanaa kuna qaada dhignaa arrimaha waaweyn kuwaas oo warbaahinta caalamku ay wax ka qorto amaba ay baahiso. xubinta maanta waxaan ku soo qaadanaynaa inkastoo xaaladda colaadeed ee Iran iyo Maraykanka ay tahay haatan mid degan 3 maalmood ee lasoo dhaafay haddana waxaa soo baxaya khasaaraha Maraykanka ka soo gaaray weerarada Iran ay ku beegsatay danihiisa gobolka. weerarada Iran waxay u adeegsatay haddaba gantaalo iyo diyaarado aan duuliye lahayn. mid ka mid ah gantaalada Iran ee adeegsatay ayaana la sheegay inuu yahay gantaal si xun waxyeello ugu geystay oo burburiyay saldhigyada iyo xarumaha Maraykanka ee bariga dhexe isla markaana gantaalkaasi waxaa la yaabay qiimihiisu jaban yahay waxtarkiisuna ama waxtarka howlgalna uu ka badan yahay qiimihiisa.
haddaba warbixin ku aadan gantaalkan iyo arrimihiisa waxaa soo jeedinaya waryahayaga maxamed cabdiraxmaan sheekh. wargeyska The Wall Street Journal ayaa daabacay isagoo soo xiganaya saraakiil Mareykan ah in Iiraan ay adeegsanaysay gantaalada Khaybar Shakan weerarada ay ku qaaday saldhigyada Mareykanka ee gobolka tan iyo markii iska horimaadku uu dib u bilowday ku dhawaad 2 toddobaad ka hor. saraakiisha ayaa sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisu ay soo rideen wasad hadalka loo dhigay inta badan gantaalada Khaybar Shakan muddadii dagaalku uu socday, balse qaar ka mid ah ay u suurta gashay inay ka gudbaan dhinacyada difaacyada ayna gaaraan bartilmaameedyadooda. xeelad military oo cusub sida ay sheegeen saraakiishu, Tehran waxay dhawaan ay qaadatay isku dar dariiqyo diblomaasiyadda dhaqdhaqaaqyo iyo xawaarayaal kala duwan si ay u marin habaabiso difaacyada Mareykanka. intaasi waxaa dheer, saraakiishu waxa ay sheegeen in Iiraan ay adeegsatay diyaarado dagaal oo aan duuliye lahayn oo xawaare sare ku socda iyo sidoo kale gantaalaha ka fudud dhinaca farsamada, kuwaasi oo lagu riday isla goobaha lagu bartilmaameedsaday gantaalada Khaybar Shakan, iyadoo isla mar ahaantaasina ay sii wadatay wax ka bedelka xeeladaheeda inta uu socday iska hor imaadku. tan iyo markii ay burburtay xabad joojinta, Iiraan waxa ay bartilmaameedsatay deegaano ay degan yihiin ciidamada Mareykanka ee saldhigyadooda ku yaala bariga dhexe iyo sidoo kale raadeero taageera nidaamyada difaaca cirka, taasi oo qayb ka ah istiraatiijiyad looga gol leeyahay in ciidamada Mareykanka loo geysto khatar badan sida warbixinta ay tilmaantay. astaamaha gantaalada Khaybar Shakan. wargeysku waxa uu soo xigtay falanqeeyaal military oo sheegay in gantaalada Khaybar Shakan dib loo shidi karo isla markaasina si degdeg ah loo rari karo baabuurta xamuulka ama gaadiid kale si loo gano, taasi oo lagu doonayo in looga baxsado diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka iyo Israel ee doonaya in ay burburiyaan goobaha gantaalada Iiraan. marka laga hadlayo habka uu u shaqeeyo, wargeysku waxa uu sheegay isaga oo soo xiganaya falanqeeyaal iyo saraakiil in nooc ka mid ah gantaalada lagu qalabeeyay qaybta hore sida madaxa qarxa, taasi oo ka goda gantaalka intiisa kale marxaladda ugu dambeysa ee duulimaadka, isaga oo leh motor yar oo u suurta gelinaya in uu wax ka bedelo jihada marka uu dhow yahay bartilmaameedka, xawaarihiisuna uu ka badan yahay 9,000 oo kiiloomitir saacadii. Iiraan ayaa horumarisay gantaalka ridada dhexe ee balaastikada ee Khaybar Shakan, kaasi oo ku shaqeeya shidaal adag, waxaana lagu nashqadeeyay qaab fudud oo u ogolaanaya inuu ka gudbo nidaamyada difaaca cirka isagoo adeegsanaya wadooyin duulimaad oo qalloocan oo adag. gantaalku waxa uu ku tiirsan yahay nidaam hagitaan gudaha ah oo ka difaacaya faragelin elektarooni ah, isaga oo leh awood uu ku cusboonaysiin karo jihadiisa inta uu duulayo, taasi oo siinaysa dabacsanaan sare oo uu ku garaaci karo bartilmaameedyo adkaysan iyo kuwa dhaqdhaqaaqa. khubaradu waxa ay soo gabagabeeyeen in muddada dagaalku socda ay Iiraaniyiintu ogaadeen in gantaalka Khaybar Shakan ay yihiin kuwa aad u wanaagsan maadaama ay jaban yihiin dhinaca wax soo saarka, u fudud yihiin nidaamyada lagu gano, isla markaasina aad u waxtar leeyihiin. sida uu sheegay The Wall Street Journal, qiyaasaha Mareykanka iyo Israel ayaa muujinaya in Iiraan ay haysatay 2,500 oo gantaal oo Khaybar Shakan ah iyo gantaalo kale oo ridadoodu dhexdhexaad ay tahay ka hor inta uusan dagaal ku qarxin, iyada oo la tilmaamay in ay suurtagal ay tahay in tirada kale ee gantaalada ah ee dib loogu raro saldhigyada dhulka hoostiisa ah ay yihiin kuwa dheeraada. warbixin kale oo wargeysku uu daabacay Jimcihii kuna salaysan sawirada gacmeed oo dhawaan la qaaday ayaa waxa lagu sheegay in Iiraan ay si degdeg ah ay u dhisayso kaabayaashii ay waxyeeladu ka soo gaartay weeraradii Mareykanka iyo Israel, laga bilaabo saldhigyada gantaalada ee buuraha ku dhex yaala iyo buundooyinka, dekadaha iyo xarumaha wax soo saarka, xawaara walaac geliyane mas'uuliyiinta Israel iyo dalalka reer galbeedka abuuray.